hadalladii dhowrkay maalmood u dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho halkaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay shirar isdaba jooga kula yeelanaysay daneeyayaasha iyo saaxiibada bahda mucaaradka qaybahooda kala duwan wadahadallada oo run ahaantii jawi aad u wanaagsan oo niyad sami iyo mabaadi'da wadaxaajoodka iyo in si wacan la isu dhagaysto afkaaraha la isla rogrogo ku bilaabmay aad baan u soo dhaweynaynaa inay furmaan waxaanu iyana u mahad celinaynaa saaxiibada Soomaaliya khaasatan ay ugu horeeyeen dalka Turki iyo wadamada kale iyo safiiradii madasha nagu soo booqday nala qayb qaadanayay dabcan sida ummadda Soomaaliyeed ay wada ogsoon tahay dowladda federaalka Soomaaliya sanadadii u dambeeyay waxay aad uga howlanayd sidii looga miro dhalin lahaa hadafka weyn ee aynu qoomiyad ahaan iyo qaran ahaanba u leenahay oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho ku salaysan mabaadi'da aasaasiga ee qof iyo cod doorashada dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo la tashanaysa oo kaashanaysa daneeyaasha kala duwan ee dalka waxay gelisay tacab badan sidii loo hirgelin lahaa dhido badana lagu aasi lahaa dabcan dadaalada wadda ka soo bilaabmaya sharci dejintii aasaasidii hay'adihii iyo howlgelintii hay'adihii ka shaqayn lahaa doorashada iyo dhaqangelinteedii ka sokow waxaa barbar socday dadaallo mar walba lagu kabeeyey doorashada oo ah wadaxaajood iyo wada hadal iyo in mar walba taladu ay tahay mid ku salaysan dhegaysiga la dhegaysanayo lana dhaqangelinayo doodaha ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada dabcan ma aha markii u horreysay ee ay xukuumaddu la fadhiisato kooxaha mucaaradka ah in badan oo hadda sanad iyo siyaado ah ayaa wadaxaajood lagu soo jiray xilliyo kala duwan baa wadaxaajood lagu soo jiray haddana kuwani waa kuwa daba socda sunnihii ku dhisnaa siyaasad laga wada hadlayo wax la isweydiinayo laga doodayo horena loo soconayo oo aan ku dhisnayn cunfi iyo dawyo kale oo siyaasadda lagu raadiyo aad baan u soo dhaweynaynaa taa ka sokow waxaa iyana soo dhoweyn mudan intan ay noo bilaabmeen dhowrkii cisho u dambeysay wada hadalladu waxaan aad u soo dhoweynay in badi haddii aana dhammaanba oran saaxiibada kala duwani ay run ahaantii mabda'a in talada dadka Soomaaliyeed la gaadhsiiyo oo muwaadinka Soomaaliyeed uu xaqna u yeesho in uu waxna doorto lana doorto mabda'aasi uma eka hadda mid lagu kala lixsan yahay waa mabda' soo dhoweyn mudan waxa iyana badi la isla qabaa mabaadi'da dimuqraadiga inay aasaas u tahay waxa la yiraahdo hanaanka xisbiyada badan oo doorashada aynu ka hadlaynay dimuqraadiyadu dabcan waa mid ku dhisnaan doonta hanaanka xisbiyada badan iyana waxaad oran kartaa waa mabaadi' inta badan la isla soo dhaweynayo jiri karaan doodo dadka qaar ay qabi karaan iyana waxaa barbar socota iyana udub dhexaad ah kale ah in la helo hanaan maamul oo doorashada lagu maamulayo oo lagu maareynayo oo daah furan oo run ahaantii raali laga wada yahay kaasina waa mabda' ay u taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxa iyana la isla meel dhigay oo run ahaantii aad moodaa in la wada ogol yahay doorashadaasi in ay fursad siiso dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba oo suurtagala oo doorashadu ay ka dhici karto meel walba oo ay doorashadu ka dhici karto duruufaha khaaska ah ee jirana ee kooban ee jiri karana iyana in
laysla maareeyo. dabcan wadaxaajoodka iyo wadahadalkaas waxaanu ku rajo weynahay inuu ina gaadhsiiyo dhammaystirka iyo kamiro dhalinta hadafka ay dowladda federaalku muddo dheerba soo waday oo inaga saaraya fadhiidnimadii aynu ku jirnay ama 35kii u dambeysay dalku uu burburay ama ilaa iyo 60 iyo 7dii 8dii 9kii xilliyadii u dambeysay aynu aragno xukuumad Soomaaliyeed ama xildhibaano Soomaaliyeed oo si dimuqraadi ah loo soo doorto. waxaynu ku rajo weynahay in doorkan aynu ku guuleysano hadafka asaasiga ee ah in la reform gareeyo ama isbeddel lixaad lagu keeno hanaankii dalkan siyaasaddiisu ay ahaan jirtay oo ahayd doorasho dadban oo dalka iyo dadkaba dib u dhigtay oo sidii aynu ugu dhiiranay inaynu dhaqaalaheena wax ka qabanno amnigeena qayb lixaad la ka qaadanno duruufaheena kale u maarayno oo u bedelno in aynu hanaanka ay laysu dooranayana aad u bedelno oo ka dhigno mid dimuqraadi ah oo suurtagelinaya mabda'a qof walba iyo codkiisa inuu dhibto. dabcan hadafkaasi waa mid u baahan in la iska kaashado, waa mid u baahan daneeyayaasha kala duwan oo dhammi inay fikirka raalli ka ahaadaan hore loo socdo. ilaa hadda maanan arag annagu cid si cad u diidaysa mabda'a, laakiin su'aalo xagga operationska la xiriira iyo dhaqangelinta ayaa la qabaa. kuwaasna marka laga wada xaajoodo waa kuwa la xallin karo. laakiin in siyaasadda Soomaaliya ay noqoto mid ku dhisan sharciyad, mabaadi'da asaasiga dimuqraadiga ah iyo horu socodnimo ayaa run ahaantii aad moodaa in aad loo soo wada dhaweynay. annagu haddaanu nahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda hadda joogta waxaanu mar walba ku khasbannahay oo waajibaadkayguna faraya oo dastuurkuna faraya in aanu talada ballaadhino, la tashanno qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururada haweenka, culimada, waxgaradka, xisbiyada, kooxaha mucaaradka ah, maamul goboleedyada iyo cid walba oo aragti shariifa oo horu socda ku soo kordhinaysa geedi socodkan dimuqraadiyiinta. waxaan ku rajo weynahay dadaallada xukuumaddu ay bilowday qaarna ay wax ka fuleen oo ummadda Soomaaliyeed ay makhraati ka ahayd iyo inta inoo dhimanba isugeynteeda in guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyata aynu halkaa ka heli doonno iyo sumcad iyo magac ay dadka Soomaaliyeed oo dhamma yeelan doonaan oo aan mar dambe waxa la yidhi fulaxantiima moogane aan mar dambe dadka iyo dalka Soomaaliyeed lagu dori doonin dowladdoodu inaanay ahayn mid dimuqraadi ah oo bulshadu ay soo doorato oo tixgelin mudan. dhaliisha dhowr iyo 30 jirsatay in aynu ka gudubno ayaan ku rajo weynahay. insha allahu tacaala waxaanu ku niyadsannahay in wada hadalladan bilaabmay ee tacabku uu galay ee saaxiibada Soomaaliyana ay juhdi geliyeen miro dhalkeeda dhowaan la arko. hadafkii aynu lahayn in dadka la gaadhsiiyo fursad ay ku codeeyaan iyana ay ama lagu doorto qofka aynu gaadhno biidnillaahi kariim saasaynu ku rajo weynahay.